بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إن شاء الله وحين بلاونا اسمه تمركينا محاضرة ذي قيبتي السدحات، ومحاضرة ذي عنوان كذا وحاوي بربرك لمانا محاكينا وحنك سود بينا إن شاء الله الشيخ. وحنقول درا محل وحي السؤال وراقة دلقيبين دونا إن شاء الله. كي سؤال وحلقة الجواب بعد العشاء ودي لا إنه سؤالهن إنay noqdaan wax quseeyo saddexda afarta muxaadaro oo shalay iimaanta ay baxayaan marka wixii kasii baxsan su'aalahaasi waa warqad durdaarna insha Allah. marka muxaadarada cinwaankan waxay noqonayaa burburka lamaana maxaa keenay. waxaan kusoo dhaweynaa sheekheena Sheekh Abu Talha, falyatafadal jazakallahu khayr. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، أدنا وفرح سنة هاي كلن كان كلن كيس ضحات مقالة بوروس المانتا أن وداقنو إن شاء الله تعالى هذا الليلة هذا موضوع على مقع بحي maxaa keena ama waxyaabaha keena burburka qoysku ama lamaanuhu waa meesha ay noloshu ay ka guntanto. markii nebi aadam la abuuray ilaahay wuxuu u sameeyey subxaanahu wa tacaala lamaanu u sameeyey hooyadeen xawaa. wixii intaa ka dambeeya bulshadu waxa ay ku taranto ay ku badato waxa weeya waa lamaano isguursaday weeye. waana sunnatu alambiyaa, waa sunna min sunani ambiyaa'i illaahi subxaanahu wa tacaala in la isguursado oo la tarmo oo reero la dhalo, carruuro la koriyo. nabiguna calayhi salaatu wassalaam waa nagu boorriyey guurka inaan guursanno. kolba galabtaan kaga hadli doonaa dhallinyarada, mawduuca dhallinyarada oo magaciisa la yidhaahdo dhallinyarada guurka maxaa ka hor taagan ayaan kaga hadli doonaa. laakiin darsigeennana caawa ama galabta wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha keena burburka qoyska. insha allahu tacaala qodobo dhowra ayaan idinla wadaagi doonaa, iyadoo ku ficnayda inaad aragtaan, laakiin ay suurtagal noqon weyday inaad ila aragtaan iyadoo suuro leh. laakiin qofka raba waan siinayaa muxaadarada USB hadduu keensado waan siinaya insha allahu tacaala haddii la yidhaahdo rag iyo dumar intaba. waxaan isleeyahay waxyaabaha keena burburka qoyska waxaa ka mid ah doorashada hore oo aan lagu salaynin shareecada islaamka. waxaad ogtihiin ood ka warqabtaan shareecadeennu wax walbay ka hadashay, xataa musqusha qaabka loo galo. yuhuudi baa xataa isweydiisay oo tidhi, oo nebigiinnu calayhi salaatu wassalaam ma wax kastuu idiin sheegay xataa musqusha sida loo galo? cumar wuxuu yidhi nacam, nabigannagu wuxuu noo sheegay wax walba xataa sida musqusha loo galo. qodobka koowaad marka waa maxay? doorashada hore oo aan lagu salaynin, gulna looga dhigin qaabka ay shareecadu u qaabaysay. shareecadu waxay u qaabaysay
dumarka marka laga hadlayo wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam tunkaxu almar'atu liarbacin dumar afar arrimood mid unbaa lagu doortaa yacni dumarku afartaa kama dhexbaxaan weeye ama waa sidan ama waa tan ama waa tan ama waa tan imaa in lagu doorto xoolo oo rag baa iska jecelun islaamtu inay lacag leedahay rag baa iska jecel ilaahay amarkii sheekhow islaam garoob ahoo meel degan oo 5 carruura lahoo lacag ay u soo dhacdo 3 biloodkii iisoo raadi buu ku leeyahay maxaa kuu diiday inaad mataqaanaa mas-uuliyadda qaado oo adigu aad reerka wax u dhisto oo adigu xoolahaaga la cuno oo maya sheekh wuxuu leeyahay marka rag baa unkaba helaba maxaa la yidhahdaa islaan xoogaa lacag haysata rag baa waxay u guursadaan gabadhu inay dhaban leedahay oy qurux badan tahay gabadh kastoo qurux badan waa tiisi ma la qabaa may shukaasuu ku bilaabayaa waxa uu xeerinayo waa quruxda ragga qaar baa waxay eegaan qoyska ay ka dhalatay ay ku doortaano dhahaan qoys geesi ah qoys deeqsi ah qoys ahlu sharaf lagu yaqaano ma aha sida ay soomaalidu qoyska ay u yaqaanaan soomaalida dulmiga ay galaan baa waxay ka mid tahay ummaddanoo ilaahay ka uu beeray oo nebi aadam ka soo farcantay in intii la weel duwo oo la takooro in la yidhaahdo kamana guursanno mana naga guursadaan taasi shareecadeenna asal kuma leh waana dulmi waana gardarro waana xadgudub waana ciqaabkeedana ha ka dheragto soomaali maanta taa marka kama hadlayno marka lagu leeyahay weli ahalkeeda marka lagu leeyahay waxaa laga wadaa dad ahlu karam iyo deeqsinimo iyo ahlu sharaf lagu yaqaan baa laga wadaa ayaa gabadha lagu dooran karaa midda ugu dambaysa waa diin dardaaran buu marka nabigu raaciyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nimow war nin yahow dumar afartaa unbay ku wareegaysaani midda diinta la dooro haddaad diin wax ku dooran weydo carradaad cuni doontaa aywa taribadeedaad uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam su'aal baan isweydiinaynaa maxaa diinta loogu dooranayaa aanse raaciyo ninka waxa lagu dooranayo idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqah haddaad idin yimaado nin diin iyo akhlaaq leh fiiriya raggaa lala hadlayaa ee gabdhihiinna ha ugu diidina inuu yahay reer hebel ha ugu diidina inuusan wax badan haysanin arsaaqaddu ilaahay baa bixiya weliba khaasatan markii meelahan la joogo maca alasaf dad baa weliba hurdo aad u dheer ku jiro khuuro la socoto meesha la jooga lamaba yaqaanba caawa hadday gaal raacdo waxba uu ka qaban karo wuu og yahay inay waxba uusan ka qaban karin gaal hadday raacdo caawa waxaase laga yaabaa wiil soomaali ah inuu u diido gabadha oo uu yidhaahdo isma guursano reer hebel way dhacdaa waxba ma haysto dadka meesha joogo dhan baa waxba haysanoo qaxooti ah wuuse shaqaysan doonaa way shaqaysan doontaa adiga laftaada odayga ah xaaskaad gabadhan ka dhashay markaad guursanayso waxaa laga yaabaa in re'abtiga ay kaala kuu keeneen ooda waxba haysanin baa laga yaabaa allana waa ku barwaaqeeyey maxaan oga jeedaa waxa la isku dooranayo waa diin iyo akhlaaq marka diintu xaggay kugu xidhaysaa allah subxaanahu wa tacaala akhlaaqdu maxay kugu xidhaysaa labadan qofe isla nool qaabka u wada noolaan lahaayeen ayay akhlaaqdu ayaduna hagaysaa akhlaaqdu waxay qaabilsan tahay labadan qof qaabkay u wada dhaqmi lahaayeen diintuna waxay qaabilsan tahay sidii ilaahay loogu dhowaan lahaa oo loo cibaadaysan lahaa haddaad fiirisaan marka qoysaskeennu meeshay ka dumaan hadda waa labada ilaahay oon siday tahay loogu xidhnayn iyo labadii qof oon akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan iskula dhaqmayn qodobo muhiim oo kalaad idinla wadaagi doona haddii alla yidhaahdo marka waa doorashada oon marka hore la wadaajinin taasi khalad weyn baa ka yimaada ayaa tukada
waxaad maqlaysaa inuu leeyahay sheekhow ninkaygu ma tukado islaantaydu ma tukato dee dhibka halkaasuu ka imaanayaa salaad la'aanta dhibku wuxuu ka imaanayaa cibaado la'aanta in la isku mashquulo wuxuu ka imaanayaa in ilaahay kitaabkiisa lagu mashquuli waayo oo sunnada nabiga lagu mashquuli waayo sal slam waxaan kula dardaarmayaa cidda guursanaysa hadda gabadhaad guursanayso inaad diin iyo akhlaaq ku doorato adiguna aad noqoto nin diin iyo akhlaaq leh waxbaa kuu badbaadaya kaasi waa qodobka koowaad oo keena burburka reeraha qodobka labaad labada qof oon isbaran iyagoon is aqoon ayagoo kala duwan baan rabaa inaan dhaho labada qof oon isbaran ayagoo kala duwan qodobka wuxuu iga baahan yahay inaan si qiimo badan aan miiska isula saarno dhallinyaradana galabta waa u tilmaami doonaa haddii la yidhaahdo qofkan aad nolosha la wadaagayso waxaa laga yaabaa maya xaqiiqo ah haddii inaydan is aqoonin isku si oo maydan soo korin waxaa laga yaabaa adu inaad ku soo kortay guri barwaaqo ah waxaa laga yaabaa gabadhu inay ku soo kortay guri faqri iyo gaajo ah isdaba mari cagsigeedana way noqon kartaa waxaa laga yaabaa gabadhan inay ku soo kortay guri la koolkooliye ayada adiguna aad ku soo kortay dhagax jebin waxaa laga yaabaa inaad ku soo kortay gabadhu ku soo kortay ama ku soo kortay adigu guri aad u degan aabbiyo hooyo wax garanaya nolosha wax ka fahamsan guri raaxo badan guri aan buuq iyo qaylo lahayn waxaa laga yaabaa midkiin inuu ku soo koray hooyo iyo aabbo habeen iyo maalin aflagaado iyo cay iyo qaylo iyo boolis la iskugu yeedho noloshaa inaad ku soo kortaa laga yaaba qof walba wixii uu ku soo koray buu hadhowta meesha la imaani labadii qof mid baa laga yaabaa inuu caqli badan yahay midna waxaa laga yaabaa in laga caqli badan yahay waa doqon ma dhahayo laakiin inuu kan ka caqli badan yahay suurtagala labadii qof waxaa laga yaabaa mid baa xanaaq badan oo caro badan waxaa laga yaabaa mid baa laga yaabaa inuu aad u degan yahay oo haadi yahay labada qof waxaa laga yaabaa inuu mid xanuunsan yahay midna uu caafimaad qabo la isma weydiinin wax lagu magacaabo jacayl baa meesha yimid aan gadaal kaga hadli doono lagama wada hadlin waxaan idinkula talin lahaa dhalinyarada ogaada shalay aniga muxaadaray culaad wix 40 ka yaro ragga meesha fadhiya wada dhalinyaro intooda badan saasaan u jeedaa dhalinyaro gabdhaha aad hadda odayaal ma aha dhalinyaro caawa markaad gurigaaga tagto gabadha way maqlaysaa hoos bishoon gabdhaha isku daya caawa markaad guriga tagto waxaan bixin doonaa muxaadaradani furayaal in la isticmaalo loo baahan yahay haddaad isticmaali weyda adiga iyo halkadaada hadhowta ha ooyin laakiin waxaan rabaa inaan furayaal muhiima ku siiyo waxaan rabaa caawa markaad guriga tagto carruurtuna seexdaan guriga in la soo dhigo miiska in la soo saaro biyo cad iyo qudaar gabadhu quruxdii habeenkii ay arooska ahayd sidii ay u qurux badnay inay iska soo dhigto ninkuna sidii uu habeenkii arooska ahayd uu iska soo dhigo qalin iyo bugna la soo qaato la yidhaahdo qof walba waxaad soo qortaa waxa aad jeceshahay ii soo qor haydhihin 30 sanaan isqablay sheekhow hadda caawad u baahan tahay waayo 30 sano haddaad isqabteen 30 sano ka hor wixii dhacay baa guriga weli dhex yaalay waagii aan halkaa joognay waxaad igu tiri yaa weli tahay in la yidhaahdo ii soo qor waxa aad jeceshahay adu maxaad jeceshahay qor waxaad jeceshoo dhan waxaad raacisaa waxaad neceb tahay wallahi waa furayaal wey xaqiiqa waa furayaal muhiima qofka arrintaa ka faa'iidaysan doonow waad arki doontaa natiijada ay leedahay wax alla waxaad necebtoo dhanna qor waxaad dhibsata ii sheeg
si aan kaaga ilaaliyo waxaad jeceshay ii sheeg si aan kuu siiyo ha soo qorto gabadhu adiguna soo qor isbedela warqadaadii qaado warqadaadii ayada sii warqadeedii adigu qaado aqri isku dul aqriya maxaad ka carootaa adu maxaad ka carootaa cibaada la'aan baad ka carootaa maxaa kaloo ka carootaa adoo malag ma tiidi adu malag ma tiid laftaadu waa lagugu arki karaa waxaan la raalli ka ahayn akhlaaqda igala hadal akhlaaqda dhaqanka akhlaaqda maxaad ka carootaa hal mid ii sheeg tamaam baaraka allahu fiik مثلا ninkani sheekha wuxuu yidhi waxaa jaabir wuxuu yidhi waxaan ka caroodaa oo necbahay buu yidhi nadaafad xumada qaybo badan bay leedahay nadaafad xumadu waxay noqotaa guriga nadaafad xumadu waxay noqotaa jirka nadaafad xumadu waxay noqotaa dharka nadaafad xumadu waxay noqotaa bii'ada nadaafad xumadu wax lagu cunayo nadaafad xumadu wax lagu cabayo ayay noqotaa jaabir marka waxaan u baahnaa intuu ciil u dhiman lahaa inuu islaantiisa u sii sheego oo yidhaahdo anigu oo qoro anigu nadaafad xumada ma jeceli maalan tusaale ahaan waan necbahay nadaafad xumada waa xaqiiqo wey waxaan rabaa ninkani maxaa kaa cadhaysiiya maalan maxaad necab tahay maxaa kaa cadhaysiiya haddaad cadhooto maxaa ku dejiya ragga iyo dumarku ogaada inay kala dabeecad duwan yihiin dumarku suuqay ka helaan raggu suuqa kama helaan weligaa islaantaada suuqa ma isu raacdeen kadibna dukaanka waxa yaalla ma soo aruursatay alla kana guri waa ka maqnaa alla kana jikadu ka maqnaa alla kana caruurta kaba haadi alla kama midkan adiga waad yaabantahay madaxa ku xanuunaya raggu suuqa kuma jiri karaan saacad jawiga iyo buuqa iyo qayladani wax isdabamar raggu way ku wareeraan dumarku waa bunkoodii suuqa dumarku suuqa wayba ka helaan 5 saac ay ku jiri kartaa gabadha suuqa diracan fiiri alaabtan fiiri kan fiiri shaqadooda wey la isma fahamsano oo hadhowta gabadhii waxay leedahay markuu dhana ila keen waa suuqa ku fogaanay waxay leedahay horta aan ima jeclid waayo mar alla markaan suuqa aan imaano naftaad ii keenta maya wuu ku jecel yahay dabeecadda raggan suuqa jeclayn wa in la isfahmo marka koobaad marka ninka waxa laga leeyahay soo adeeg markaas wuxuu dhigi waxaan soo gaday xagee yaalaan markuu leeyahay xagee yaalaan dukaanku rabaa meeshuu yaalo inuu soo qaado soo carbo wa in horta la isfahmaa dabeecadka waa la isfahmaa furiinka badan maxaa keena inaan la isfahamsanayn waxaa laga yaabaa inaan anigu ninkii markaan ahay inaan dhaho anigu haddaan cadhoodo waan baxaa masaajidkan aadaa raggaan u tagaa waa la soo shaah cabbaa caawa anigoo faraxsan ayaan ku imaanayaa saa oo la soco iridda hay istaagin ifur hay dhihin kulleetiga hay qabsanin haddaan cadhoodo waa la idaayaa saasaa la isku waafaqaa marka gabadhi marka way ku daynaysaa way ku daaweynaysaa waayo daawadaadii bay rabtaa ayadu innaga waad aragteen haddaan waxaan la garanin ifur bay dhihi gabadhi waxay ku tiri haddaan cadhoodo anigu gurigaan galaa waan isduuduubaa waan ooyaa naqaska iska sii daayaa alaabtaan jajabiyaa shaqadaan ku dhaqaaqaa dumarku waa shantaa midun hadday cadhooto ama way isduuduubi albaabkay xidhani ama way ooyi ama qaar baaba shaqo ku dhaqaaqi ama maxaa la yidhahdaa qaar baa buuqi oo qaylada mataqaana iska sii dayni way fara badan yihiin midba waa si gabdhuhu waa si mid baa telefoon qabsan oo saacaddaa waxay la hadlaysaa wax alla wixii mataqaana qofka ugu dhowaa ayay naqas ku sii dayni adigu markay xaaskaagu cadhooto oo ay ku dhahdo anigu waan buuqaa aamus marka adigu shib adigu weliba dariishadaha hadday xidhan yihiin soo xidhxidh dariishadaday furan yihiin weliba tv hadduu daaran yahay dami ninkaa darsiga si fiican buu fahmay lianna qosolka macnaheedu waa maxay darsiguu fahmay way ku socotaa
سائل الصعود حاصل هذا اوكي هذا دارسنت لكن هذا دارسنت ان شاء الله محاضرة iyo tagaabta marka isku darsato baabuurta oo kale xil dirdir ha buuqdo islaamtu ha qayrido mar xagga ha ku dhaafto mar xagga ha ku dhaafto ayada degi way isku ogeydeen markii hore isbarashadu marka waa shay muhiima isbarashadu waa shay cajiiba ninka iyo xaaskiisa isbarta maxaad cuntaa adigu weligaa ma weydiisay xaaskaaga maxaad cuntaa maxaad cuntada maxaa ka jeceshay hadda weydii caawa weydii u qoro waxaad adaa cuntada noocan baan jeclahay noocan baan jeclahay noocan baan jeclahay noocan baan jeclahay ay kuu dadaalaysaa gabadhu ayuu gabdhaha Soomaali dadaal badan yihiin waxaad jeceshahay iyo waxaad necabtahay isha waa qodob runtii aad muhiim u ah oo aad iyo aad u dheer haddaan la isbaranin oo dabeecadda la isbaranin guriga waa dima marka xaqiiqo weeye qodobka saddexaad jahli lagaga jiro sideedaba xuquuqada lamaanaha isku leeyihiin waxaan koorso yar oo nadaafad ah hadduu qofku uu doonayo musqulo inuu waddanka dhaqo muxuu u baahan yahay inuu shahaado u haysto inuu koorsadaas yaqaano ninka dariishadahaas tirtiraya muxuu u baahan yahay inuu shahaado dariishada tirtirida inuu haysto ma u maleynaysaan reer dhan oo dhismaya oo aan xuquuqdeeda la garanaynin oon reerkani ninku muxuu leeyahay gabadhu maxay leedahay maxaa la wada leeyahay aan la aqoonin marka uu soo wacayaa ninkii wuxuu leeyahay sheekhow islaantii baan furay ayadoo caado qabtay yaa furku islaan caado qabtay yaa ku yiri fur islaan caado qabta yaa ku yiri fur gabadhu waxay leedahay sheekhow odaygu waa isku rafaadnay mowduuc kale aan kaga hadli doonaa markaan kaga hadli doono guurka iyo noocyadiisa guurka duulduulka iyo guurka argoosiga iyo mataqaana khiyaanada qarsoon iyo guurka markaan qaybin doono ayaan kaga hadli doonaaye sheekhow ninkii wuu idhibay oo inkaar buu qabaayo waxaa weeyaa ninkii wuu ifuray ciddadayduna waa 3 bilood intaa waxaan go'aansaday inaan nin si shukaansaday ku leedahay saad nin u shukaansan kartaa ciddaa baad ku jirtaa saad nin u shukaansan kartaa waa in la barto waxa la isku leeyahay gabadhu waxay kugu leedahay adigu waxaad leedahay iyo waxaad wada leedihiin waa inaad labadiina aad barataan xuquuqdii haddii jahli lagaga jiro oo la aqoonin reerka waa dumaya xuquuqdu way badan tahay xuquuqda sariirtaa ka mida labada qof xaqa isku leeyihiin xuquuqda sariirtaa ka mida xuquuqda nafaqadaa ka mida xuquuqda hadalka macaan iyo wada hadalka iyo sheekaysiga ayaa ka mida qodobkan waa qodobka saddexaad oo qodob muhiima wey qodobka reeraha dumiya waxaa ka mid ah dhibaatooyinka dhaqaalaha culamo allahi hal mar dhegaysa maanta fura yar baan isiinayaa reero badan baan maqalnaa waxay ku dudubaan maxaa la yidhahdaa dhaqaalo yar oo laysku qabsado arrin yar baa idiin sheegaya caawa maxaa diidaya adiga xaaskaaga intaad wada fadhiisataan inaad dhahdaan maxaana soo gala sideedaba maxaana soo gala waxaana soo gasha lacag 15 kun 20 kun karoo lacagtiina matalan 20 kun aan dhaho shaqadii marka la isku daro 20 kun oo karoon baan soo gashay guriga ijaarkiisa waa meeqa waa la yaqaan korontadiisa waa la yaqaan maxaa la yidhaahdaa waxaan teleefanada iyo waxaan la bixinayo tiifiyada guriga waa la yaqaan waxaasoo dhan markii xagga la dhigo in la yidhaha reerkan biil maxaa ku filan intaasaa nagu filan maxaa soo haray maxaan ku darsanaa qaraabadayda iyo qaraabadaada yaa daran labaduba way daran yihiin maxaa naga go'a intaasaa naga go'da waanu goynay carruurteenna maxaan gelinaa dugsiyada iyo waxbarashada iyo tuushinada waxaas maxaan gelinaa intaasaanu gelinaynaa maxaa soo haray maxaa soo haray waxaa ma soo haray markaan runta isu sheegno xabad ma soo haray waxaan runta sheegno waxaa laga yaabaa 3 biloodka iyo waxyaalaha ciyaalka loo soo diro in ziyaado ay noqso saas maaha in la yidhahdo waxaasna haweenkaa ku fiicane ayuuta aan ku gallo haye inay carruurtaale waxaan lacagta maba lihidiin ba idinku waalidiinta lacagta maba laaba waalidiintaale carruurta iskale in la yidhaahdo lacagta noocaasa ayuuta aan u gallo aanu meel u dhigna ciyaalkeenna mustaqbalkoodaan ugu samayno kadibna la isku waafaqo
waxa la samayn doona islaamii baa waxay leeyihin sheekho waxaan aruuriyey oon ayuuta galay odaygii intuu mataqaanaa iga qaaday oo yidhi business baan ku samaynayaa iyo islaamkana kusoo guursaday waa arrin waaqicoo taalla wey marka lafteeda waa in laga sheekeeyo oo la yidhahdo lacagtaan aan aruurinayno maxaanu ku qabanaynaa carruurteennaa leh waaba dhammaatayba hadday soo hadho 1,000 karoon iyo 1,000 karoon in la yidhaahdo haddee nin baa tahay adigu rag baad shaah la soo cabaysaaye nin weyn oo jeeb maran waa laga wanaagsan yahay darti 1,000 kaana suuqa adigu ku galo ragga shaah la cab oo shaah u soo shub adiga laftaada haween badan baa kugu xidhanoo kuu imaanayo oo wax degdegaad u baahnaan kartaayo ilmihiiba habeen barkii lagu soo boodi karaayo shaqo anoo ku maqan baa taxi qaadan kartaayo bal adigu waxaan waa la qorsheeyaa maxaa yaala wax la isku khilaaf waa ceeb wax la isku khilaafay meesha ma yaalo waa wax yar oo sandareera oo qaxootinimo naloo siiyey weeye marka qodobka dhaqaalaha arju inuusan reerkeenu u burburin ama reerahan u burburin intii laga wada fadhiisto in la yidhahdo war waxaana soo gala shaqo ahaan nagu soo gala cayn ahaan nagu soo gasha aan qaabka nolosheenna u qaabaysano biidnillaahi tabaaraka wa tacaala qodobka shanaad oo reeraha burburiya daal badan oo aan garowsho lahayn daal badan odaygii wuu soo shaqaynayaa taxi buu saaraya matalan hooyadii waa hooyo iyo hawsheed hooyadu waa mucallimad hooyadu waa dhakhtarad hooyadu waa kuug oo jikadii bay geli hooyadu waxa weeye ayadii baa ilmaha sii qaada ayadii baa keenoo waa darawalad hooyada shaqo badan ba u taal ayadoo isla cid kaa daran lama arko odaygii markuu yimaado caawa oo uu kula yimaado carruurta ha kula qabto oo ha kula seexiyo sooma oo ayadiiba ay daal tirsanayso ayaa odaygii baa shaqada ka imaanaya markaasuu ilaahay cid kaa daran adiga ma lehe islaantii maantoona guriga iska joogtay kollaba markaad tagto biyo kulul bay lugaha kuu gelin doontaa intay saa kugu seexiso sariirta ayay masaaj kuu marin doontaa bisle waa laba kala baride kala warla odaygii sibuu mataqaanaa asagu daal u tirsanayaa islaantiina siba iyadu daal goona u tirsanaysaa waxaan u bixiyey daal badan oon garowsho lahayn laakiin reero badan buu dumiyey daalka noocana oo uu ninka ilaahay adigaa daalan islaantii uurku wixii la rabay uu qaban weydo waa xanaaqaya islaantiina waxay leedahay aniga lama caawiyo ninku ima caawiyo waxba ima qabto wuu sii ordaa fadhi ku dir buu aadaa masaajid buu aadaa xag buu aadaa habeen barkii buu imaadaa annagoo daalan arrintan marka anuu xal baan u keenay xalkaan u keenay waa basiid jiddan waa furayaasha maanta furayaasha aan bixinayn ugo lacag maa la socdaya waadayaado wax innaba idinkuma fadhido keli ah inaad qaadataan ood ku dhaqantaan weeye waxaa laydinka doonayo maanta markaad suuqa jirto oo aad shaqaynayso maxay kula tahay xaaskaadii inaad telefoon u soo dirto maxaad u malaynaysaa oo dhada assalaamu calaykum wacalaykum assalaam ma fiican tahay haa xabiibtii mataqana macnaheeda ragga waxaan rabaa inaan dhaho islaantaadu magaceed cawralaa magacaan ku sheegado magaca ay islaantaadu leedahay ma ii sheegi karta ayaa u bixiyo aabbaheed adu siday kugu soo wareegtay wax magac ma u baxsatay gabadhu siday ninkan 20 jirka ah uu ugu soo wareegay iyadu magac ma u baxsatay waxaad kula talin lahaa magacyo u baxsada xaasaskiina qurqurux badan oo markaad ugu yeedho qalbiga loo dhaafayo oo ay dareemayso ixtiraam iyo qadarin iyo jacayl gooriya inaad u hayso cawrala aabaheed ba u bixiyey iskiilow adigu magac yar oo macaan adaa garanayee ya u baxso adugu laakiin macnaha uu xumbaarsan yahay jirkeedoo dhan uu dhex xuli doono oo ay macno weyn ka fahmi doonto magacii intaad ugu yeedho waxaad dhadaa waxaan rabaa maanta inaan shaqada ka soo tago yaabaysaa soo waxay leedahay maxaa dhacay oo shaqada uga istagaysaa ma dhib baa jiro ma xanuunsan tahay may adaan kuu xiisay waxaan rabaa daalka inaan la qaybsado may adaan kuu xiisay aragtidaadaan u xiisay
inaan soo noqdaan doonaya maanta waxaan kuu ballan qaadayaa maskaxdeeda waxaad gashatay maxaan ku magacaabaa waxaad maskaxdeeda gashatay wax markii aan eego ay ku shaqayn karta 20 sano dambe waxaad maskaxdeeda gashatay wax daalka ka baabi'inaya waxaad maskaxdeeda ka saartay waxa ay markii hore ku fikiraysay oo ah adigaa daalan adigaa rafaadsan waxaan kuu sheegayaa inaad qof kale guriga ugu imaan doonto aan ahayn qofkii aad markii hore guriga aad ugu imaan jirtay labiskeeda quruxdeeda cuntadeeda qosolkeeda iyo soo dhaweynteeda waa ballan ee hoos ka xariiq maxaa bedelay kelimada yarta oo keli ama bedeshay taana ballan ku qaaday waxay dareemaysaa inaad la dareemayso daalka haya mar alla markaa soo gashana aad dhahdo u fiirso waa arka inuu daal kaa muuqdo anaase daalkaa kaa baabi'in haye ii fadhiiso adugu xaggee hawsh kuu maraysaa hebel in loo qabeeyuu rabaa hebel in baambarka laga bedeluu rabaa hebel in casho la siiyuu doonayaa haye berri waxay qaadan lahaayeen in la diyaariyaa la doonayaa adi ii fadhiiso anaa shaqadaa qabanaya xogole maya adaa daalana adu ii fadhiiso gal musqusho soo qabayso waxaan kuu ballan qaadayaa intaad musqusho ku jirto inanay dadka guriga jooga qofka ugu yar baatay waa garanaysaa soo maaha waanu taas oo masalada hadda way baxday dumarkana waan u sheegnaa soo maaha carruurta guriga joogaya ugu yar ani islaan kastoo iga soo horbaxday waan weydiiyaa adeer ma fiicanta soo khayr maaha carruurta yaa kugu yar hadday dhahdo gabar baa iigu yar wiil baa iigu yaray waxaan dhaha may waxaa kugu yar ninka qofka ugu dambeeya la seexiyo waa asaga qofka ugu dambeeya galaaska caanaha la siiyo waa asaga carruurta qool inta lagu guro yaa dhaqdhaqaaqooda iyo shanqadhooda xataa la dhibsadaa oo dhawr bay naga seexda qofka guriga ugu yarna waa la dhaqaalaystaa carruurta qofka ugu yarna waa la ilaaliyaa caafimaadkiisa iyo cuntiisa laga fikiraa taa waa dumarka raggana waxaan ku dhahaa si fiican dhegaysta ragow dhegaysta ana waa idinku jira ogow xaaskaagu ifur hadday ku dhaho waa ifaham warkaa meel ku xariiqa maanta hadday muxaadarada wax kale ka faa'iiday ilaa labadaa nuqdo mooye oo gabdhuhuna ay hal darsin ay qaataan oo ah macnihiisu waa maxay inay gabadhu fahamto reerka ya ugu yar inuu ninka ugu yar yahay reerka ragguna ay fahmaan ifur macnaheedu waan ku nacay ma aha ee ifur waa ifaham waxbaan kaa tabanayaa i dhegayso iga wargur weeye laakiin tabarteedu maxay gaadhsiisay inay dhahdo ifur bas kelimadaas uma iyagu ku dhawaaqaysaa rag baa run u maleeyey marka ifur ahaa waan ku furay xataa qaar baa saddexda isu raacay saddexda waan ku furay hadhuu jiro sheekhow islaan saddex baan ku furay haddee maxaad ugu furtay haddaa furaysa xataa hal ku furay dee calaqal saddexdii waa khatar weeye islaan saddex lagu furay si fiican waxa dhan baa hadal muxaadaro waxaa jirta magaceeda la yidhahdo carada badan caydhna way kaa dhigtaa cidlana way ku istaajisaa hadda adoo reer buuxay ahaa unbaa daqiiqad bannaanka istaagaysa hadda labadaa qodob aan kala qaadano guriga dadka jooga guriga carruurta joogtay ugu yar ka jawaaba aabbaha ugu yar ragow dhegaysa su-aal baad weydiinayaaye asagaana ugu weyn dabcan isagaana ugu weyn asagana ugu yar inuu ugu weyn yahay isaga muran kama taagno shayga inuu ugu yar yahay way doonto laakiin inuu weyn yahay waa la arkaa taas muran kama taagno ragga su-aal baad weydiiyo xaaskaaga ifur hadday dhahdo maxaa laga wadaa waxaan rabaa cod kor inay ku dhahdaan faham ku celiya hadda baartogna qolyaha way maqlayaan lifekana war waxbaan kaa tabanaya ila fadhiiso waa la faham soo maa annaga hadda muxaadaradeennan aan booros u imaaday haddaan labadaa qodob kusoo gebagabayno oon dhahno wasalillahu wabaarik muxaadaradii way noo dhammaatay waxay noogu dhammaatay aan isbaranno waxay noogu dhammaatay guriga dadka joogaya ugu yar aabbaha ifur maxaa laga wadaa ifaham waxaan filayaa oon intaa dhaqan gelinno muxaadaro noo dhiman inayna jirin wixii intaa ka dambeeya waa uu iska naashnaash iyo wariisha gabadhii hadday dinkeedii intay wacdo asagoo shaqo ku maqanay dhahdo xabiibi maanta aad baan kuugu xiisay
ama asi kaleba u dhaho markay iridday ka soo galo inay dhahdo maasha allah maanta daal baa kaa muuqda laakiin waxaad ogaataa waan kula shaqayn lahaa shaqadaan kula geli lahaa shaqada waan kula qaban lahaa laakiin shaqo kale ayaan ku hayay kadibna ay daalka ka baabi'iso labada qof marka daalka in laiskugu garaabo waa qodobka lixaad faragelin guracan oo qaraabada qaar ka mida kaga yimaada lamaanaha soo ma ogidiina reera duduma sabab waxaa u ah qaraabada qaar ka mida hooyo soomaaliyeed baa waxay igu tiri wiilkaygaan gabadh u guuriyey kadibna telefoon bay u soo dirtay $100 ii soo dir bay tiri waan dhegaysanayo maxay ku tiri ma ahi yaan ku iri markaasay tiri hooyo $100 bay rabtaa fur baan idhi bay tiri naagta naag kuma noqonayse soo annagii biilka u diray bishan ha mar macnaha u fiirsada wiilkii sidii buu gabadhii ku dalaaqay ma aha macno xaqiiqa waa waswaas shaytaaniya marka reero fara badan ayaa sabab ugu noqda reerkoodu inuu dumo aabbayaasha waxaan kula dardaarmi lahaa anu aan ku jiro hooyayaasha waxaan kula dardaarmi anu aan ku jiro kuwa waddankii jooga khaasatan waxaan kula dardaarmi lahaa gabadhi ninka kaa haya ee kaa qaba xurmo iyo xushmad baa loogu dari jiray soo saas ma aha yaan sabab looga dhigin reero badan inay burburaan raggana waxaan dhihi lahaa war bakhaylnimada iska daaya oo gabadha aabbaheed waa aabbahaaye u dir waxaad awood u leedahay soo ma oo gabdhaha ku qasbina inay sabir intay kaa gasho $100 ay meeshaa ka heshay dhada aabbahay baan u dirayaa liajli bakhaylnimadaada adiga qofkan waa aabbaha waa hooyada aabbaha iyo hooyada ayaa jeceshahay ana su'aal baan weydiinaya si basiida hooyada iyo aabbaha ayaa jeceshahay sheekhana هذا لبض واتعشى طيب يا حق بغي هو يدا أنا قاعد الله الله أنا أباي هو يدا أباي ما كشعل يودي لك سابك السنة صوش كان سدي ويدا هدوسن أباي هو يدا صوش كان سدين أنا ما أقبل الله هدو إسكتشوقي لها مايا واللي ما مركو ويديدي ولوديدي ويديدي ويدبس سعودي ويدبس سعودي صوص ما أنا ما حنوقت شيء ده أباها وأبا قبل أن أبقبته إيش أشهي هدوسن أباه هو يد السوش كان سدين ميود ما يقدر الله كان مقود على الله أبا أذكر راح يسرز عرض تقول ليس أبا ياشو مركو وحن ليه هاي ورقبل أن أبقبت أباه وأباها قبل أن أبقبته هو يد هو يد هكذا خيل قبل أنا إصبرت أودين إذنكم قصة لينا يا أكو قصين قبلنا إن أي متغنى ريركم كدوا وحيرو بقول يا وحلا من تانا ودردارم أن رجع قبلها قبا أن سيرة بإذن الله تبارك وتعالى ريران وحن لهي يا للدومين اللي وين الدون طلب كتضبط صاحبك حاسد كأه أنت أنا موضوع الشرح محارب أنا به اللي رجع وحلي هذا جرا أو غفكوا عانها إيو روجا إيو أبحة لو حساسيت بجزبا دد وحاج جرا خير ونكسن إيو قيس ونكسن أو إسكو دوبان أو إسكو فيعان أو قعمها إسايستا أو هوتيلada iska tagaya oo dalxiis aadaya oo suuqa markay wada socdaan adeeganaya oo nidaamkooda iyo noloshooda oo qurux badan oo fiican oo dariiqa markay socdaan isku qosla oo la sheegaysta gabadha asturan ee gurigeeda iyo ninkeeda ku mashquusha meelaha baadiyada iyo xadladaha xunxun aan tagin ninka masaajidka iyo shaqada iyo gurigiisa ka shaqeeya dad ba allergy ku qaba oo xasaasiyad ku oo dhaha dadka si isku ficlaan karaan saadaradeed u fikiraya la dhahayo ninkii leeyahay ninka Soomaartaha gabadha inay sixrataan u malaynaya uu jaajaamaya way sixratibaan u malay gabadha waxa lagu leeyahay wuu duleystaa waa uu guumeystaa kelimada fiiriya wuu guumeystaa gabadha Soomaartaha ninka wuu guumeystaa ma ogolo salaam alaykum صاحب يعني وحوي وو يعني وحوي يك وو غوميستا dad noocaas abaajira sida daradeed dumarka oo kale markay doonayaan in ay maxal ilaa baabka soo guda galaan inta loo imaado gabadha waxa la abaayo laba sano ka hor marka ku imaado daahankii ku xidhnaa oo miyaa bilaabay gabadha risaalay gudanaysa khatar ah abay daahankii laba sano ka hor ku xidhnaa miyaa mis ana moodo
أبا فردقني وفردقي لغو أروسي ولي كويا لميا معك ما خسارة المياه مشكلة وين صبا قاب كالنوع عاسا ورردمين مين قربان وإسكودريت في لماذا قار كميدا الصومالي أي سميسو خيرها إلى الدمان بي كشقيا في لماذا خيرها الصومالي دا قيمة كميدا تيفية قار كميدا أي سميا arrimaha in lagu baraarugo waa muhiim qodobka sideedaad iyadoo xoogga la saaro xagga xumaanta gaabinta iyo dhacdhaca culimada yaa inteenan macsuum yuusuf dembi ka dhicin xaaskaaga waa bini aadam adiguna bini aadam baa tahay laakiin daqsiga ma taqaanaa wuxuu ku wareegaa qofka sababta ugu wareego daqsiga qofka ma garanaysaa meel dhacaamaysuu raadinayaa lamaanaha isqaba qaar saasoo kale jira meel may wuxuu doonayaa meel ceeb inuu raadiyo walidaalika baa gabadhii wanaagsanayd ama ninkii wanaagsanaa wax yar oo maba arkayaba wanaagga iyo khayrka iyo carafta iyo idgoonka iyo cuntada iyo shaqada iyo raganimada iyo carruurta lama arkayo waxaa laga yaabaa ficil yar oo ama ninka ka dhacay ama gabadha ka dhacay in ceebtii ugu weyn laga dhigo saa daraaddeed maxaan uga jeedaa qodobka saa u fahamtaan dad waxaa jira lamaanaha qayb waxaa jira raadiyuun wixii ceeb ah iyo wixii dhaliila iyo wixii dhacdhaca waxaas baa tiri waxaasaa samaysay war haddee waa bini aadam baan ahaye bal khayrka aan sameeyey kalama artin miya barbarwaaqadan aan sameeyo kalama artin miya ولذلك وحا وإن إنها لقى لابطا هل جملة ربائنا ما انتقى حفظات خير وحا نغنكا دقن عقل بدن خير وحا نغنكا وانا دقن وعقل بدن يقف حلقة بيونه سيو لبدا بل سوافتي وانا دقن وانا عقل بدن يهي سيده انا اكله ودقن وحا نعيونا يا ما فرق شنية وحيالا بدن بو إنها كاللابرية wax walba lama daba galo qorqodo lama noqdo waa nin raga marka tahay waxyaabo badan oo indhaha laga laabtay jira ficilada ay gabadhu sameynayso oo adiga kula qumanayn oo hadaad isku daydo inaad hadda saxdo reerku ka dumaya jira sadaraad doqon iska dhigo istoqomeeyo waa la akbara waana aragta aqlina waa leedahayo waxba kaama qarsoon oo wixii waad aragtaa laakiin goormada xallin doontaa waxaad xallin doontaa waqti waan sheegi doonaa qaabka wax loo xallin doono iyo goorta la xallin doono iyo saacadda la xallin doono waan ka hadli doonaa haddii alla raalli ka noqdo qodobka marka muxuu yahay dadku waa bini aadami walaa tansaw lfadla baynakum waxa wanaagga abaal rabaa xoog in la saaro fiiriya idaa balaga almaau qollatayni lam yaxmil alkhabar sidoodaba biyuhu hadday qollatayn gaadhaan oo 200 oo maxaa la yidhaha liitar hadday biyuhu ka bataan nijaasta maba qaadaan ilaa inuu midab isbedelo ama lawn ama maxaa la ur isbedelo ama dhadhan isbedelo mooyeen laakiin biyuhu markay intaloo kale yihiin wax yara ku dhacay ku nijaasoobaan waa mas'ala fiqi awi idaa balaga almaau qallatayn warhaade labadan qof isqaba markuu wanaagoodu bato hadee biyaha mi ka ciyo wanaagoodu markuu bato waa in la iska tuuro waxyaalaha yar yar ee dhici kara waa in la iska iloobaa qodobka meel faanteynaysa qodob muhiim ah laakiin hadda dhahdo waxaan u fiirsanayaa qofkan u fiirsanayaa hadalkuu yiri ficilkuu yiri maxaad u samaysay qashka meesha muxuu yaalaa baambarka muxuu u yaalaa kan muxuu u yahay albaabkan qiiqiiq muxuu leeyahay waxa sax ma albaabkan qiiqiiq la adu istaago sameeyo siriid mari waa marka qofka inuu xumaan doon noqdo ma aha laakiin wayna wanaag doon noqoto qofka khayr ku taqaanana khayrka ayaa loo eegaa qodobka sagaalaad waxaan rabaa in aad dhagaha loogu furo masayrka dilaaga ah reeraha waxaa burburiya masayrka dilaaga ah maxaan uga jeedaa masayrka dilaaga ah masayrka ragga iyo masayrka dumarku waa kala labo masayrka dumarku waa jacayl masayrka ragguna waa cudur masayrka dumarku waa jacayl waxay gabadhan u masayraysaa inaan ninkeeda lala wadaagin halkaa weeye masayrkeedu inay xad gudubto waa suurtagal
وصح حد قدم كما وافق سنين لكن وحو أصل كل سليسية يا من كان اللي وداقل شعال بكل سليسية أي أبيك كنت عش أي أنا نيك اللي وداقل لكن رجع مصير كودوا عذر يا شك نبى وحويري أنا بقوله مركز سنقولك الصاقلة وحال دريما إنها هيجا نبى لكونك كسيبودية إنها تصير هذا نبى لكونك كسيبودية أقول كم حياة وقولي هذا كثير مصيرك هو خطر شكي كويك ويدي لامدي كاو فربديه مصيرك ديلاقي أمرك مصيرك هو وحشرة مركو يا مصيرك ونفسن أو حمانته حاسك وغيرونيسو أما قبلوا منك إذا حمانته وغيرونيسو أما تشعيل إيش هاي هو يدنا عايشوا مثلين جبت حدود بولها صما أذكر إنه مصيره وواحد مش كل شروي والله أغير منك وتيو كلها طيب لكن مصيرك ديلاقي قبلنا غيرك أقدمية مصيرك ديلاقة ومصيرك وقبضوا ريرك وقدموا أيضا هذا يفر ومحال غفري واد قرستي وما قدر إلهي بالعلين كراه الله المحفوظ ككو قرن ما تكفى إنسان كرتان حاضر إن كان ذا كدوبي أو مارينتا مصيرك لبا مصيرك يا مارينتيس ضادنا الأحمر تي أنيجي يا قبل لي أم أحمد بأهل علماء بدن بالله كلمي ويقنعين وايين أبو طلحة وحدونا يا مانت إن أنا أدينا لو فقاريه شيخ سعيد راجل سوفريسي هيا هذا أم أحمدي مركي هذا الشيء أنا أقول سؤال دوران ويدي مركي دبنا وحنكون مضوبي كرا حوار كان ها كدي من التي في الناشونال تي في وعليك الضوء ويكون جبتها ده قرطه ما رأيت مسيح من كان مقعي وحيتي رهبل بالها أحمد إلى أحمد بورسلي يسوق ما دويت وأنا أقول مركب موضوع عن كشر كينا يدمركم ما تشعلوا شعيلكم دمركم مهين معها شعيلكم ربنا مهين معها وحأصل كوادين وأنا أنت اللي وقع على صاو وحأصل كوادين وان مقلع مالمها ندر ويسوق على أبو طلحة ونفسه بوهان شري أنا قد دمركم نوهي لين شري لكن هذا الرجل وشان شرع إلى أبو طلحة الضمر كوتشن شيرا أريجا وحيقول أفلقادو ليش؟ لأن عدالة إذا ضريسا وحات الماما يسألنا الدين كشقيرين وفيرسو إنا واحد كشقيرين الدين أهين حلقيا ما قبلنا سلاسلة إن لوجد جوابي ويسؤال شقاك أي أرد ولا فهم سما رجبا وحيكونين أبو طلحة والضمر رجع الضمر كوتشن شيرا مسألة ساس معها مسألة هو مسألة دين مسألة هو مسألة مصلحات هدي قف والبلد إذا وينه رالي النقضة الدين بعد قميصة ومدين بتشوقيسة هديها وينكو دون أيام أبو طلحة محاضرات كيسين كل رالي جليسو بينالا نقنايا واحد شيء الدين ما هدي رجو دون أيام محاضرات إذا رالي جليسو بين بشيء وحن شيء ووحن أنا الدين وأقانه ووحن أنا آمن سنة هاي إن أنا قد ظلم السماء وأن رك حق هذا إجسده أنا قد دين الآن تدوي آخر إذا أنا خدت كتير مركورت أجاده واحد شيء ودين لكن قبلنا مسألة معينة كذا يستحضر ما يلا كبته يو هاي ما دين هذا يقولب كاسن كلام نقاشنا أنا ديار دين لا رجعنا وصلوا كله ولا فهموا مرينا مسألة وحنو براروتشنا يا وحلقيها مرة قاركوا قف إنه الدم كله عسوي سلوقين دم بقاس الودية يا دكتور إلى كل عام وحان ربا مركي أنا نهو قبل وحان كويري نك هذا هبل بالي صماها إن أسبوع سنة سان قرمات وقعت وحيت والله مركي الشكان صنع بالوقالي أو دعاء شيني وحان كويري مسكين أو هريب أباد الأولين مياه مياه أو متقانا أو إنه الله المحفوظ كا نك هذا حاس كله أو قرب قريب ما بقى الأولين مياه مركزي تري مياه لكن هذا إلهي وحوقه انتو سماواتك إيا نورالك أبورين شن كن أو سنكو هاي إنو إلهي مقع قبلنا أكتاذا كقرين ما الظلم بضو أركتا
أعوذ بالله ما إلهي ظلمي قرب لي كرتا ما وحدو أركتا إن أديك la xukumay in qofka lagula guursado inuu ilaahay xadgudub ku sameeyey waa maya ma waxaad leedahay hadda ha laga tirtiro ma waxaad leedahay seed adiga ninkan ugu raali noqotay adigu ahaantaada in laguu qoray ayada se aad ugu raali noqon weyd in loo qoro masaladu waa mas'aladii dumarka qaarkood waxay dhahaan abu talxa adigaba hal xaas baad qabtaaye maxaad nimanka nooga waali markaasaa u hadlayso annaga waxaan ka hadlay waa diin ogow waa meesha iska afgaran la'nahay war waxaan ka hadlayna waa diin fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathna wa thulath wa rubac fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida war waxaan waa diin nin walbana looma ogolaan inuu guursado cadaalad baa la rabaa laakiin hadday timaado ma qadarka ilaahay baad aduu la dagaalami oo hadday timaado ma reerkaagaad u dudubini middaa wey midda la doonaya in caqli masalada lagu eego raggana markaa masalada guurka aan ka hadli doono mar labaad baan ku soo noqon doonaa masayrka dilaaga ah waa masayrka dumiye reerka raggana waxaan leehay war markaad guursanayso qodobkaa ugu imaan doonaa iska sug anaa mar labaad soo noqon doonee fahamka waa qodobka tobnaade faham xumada qaab xallinta khilaafaadka waktiga goobta iyo qaabka qodobka in dhagaha u furtaan maan rabaa waxyaabaha reerahayna dumi waxaa ka mid a qaabka khilaafaadka loo xalliyo ma naqaano waa la iskhilaafay carruurtii dhexdooda la isku buuqay odaygii waa dhaqaaqay islaantii way dhaqaaqday waa dhammaatay war sidaasi geela looma arooriyo maa haakada tuuradul ibil sidaa geela looma arooriyo khilaaf hadday adiga xaaskaagu idinka dhexdhacaan ha xallinina adigoo gaajaysan adigoo daallan waktiga qabowga badan uu jiro waktiga kulaylka badan uu jiro waktigaad xanaaqsan tahay waktigay carruurta joogaan iyo waktigaad mas'uul u baahan tahay intaa midna ha xallinin waxaad u baahan tahay 3 arrimood si fiican dhagaa u fura waktigaad xallinayso intaa aan sheegnay wakti aan ahayn goobtaad ku xallinayso waa inuusan qolka jiifka noqonin qolka jiifka shaqooyin kale u yaalla jirkaa lagu nasiyaa oo maskaxda lagu nasiyaa laakiin qolka jiifka inuu noqdo maxkamaddii heeg ku taalla inuu noqdo oo mar alla markii la seexan laaliyo toos hadalkaa maxaad u tiri ninkaa ma seexan karaa islaanta ma seexan kartaa qolka jiifka waxaa loogu talagalay in lagu nasto xaggee lagu xallinayaa koow fadhiga meel beer ah meel bad ah hoteel meel khaas ahoo labadiinna abaa lagu xallin taa waa goobta waxaa leeyahay carruur ma joogaan ma cadaysnid waa cadhada waa kaa degta ma gaajaysnid masquul ooma baahnid kulayl qabow badan ma jiro kulayl badan ma jiro dhexdhexaad baa la rabaa jawiguna waa inuu yahay jawi haadi ah qaabka loo xallinayo waa sida soo socda qaabka loo xallinayo waxaa weeye horta dikru jafa bacda safa jafa wax la soo dhaafay ninka dib ka keena asagaa daandaansiga wada horta waxaan aniga adi hore oga wada hadalnay dikrul jafa bacda safa jafa waxaan aniga adi ka soo heshiinay soo celcelinteedu adigaa gardarre iyo daandaansi wada xagga u dhig amaa cilladan hadda taalla mas'aladan hadda horteenna taalla 2 arrimood baa idiin sheegayaaye ragga iyo hor fadhiye gabdhihii nama hor fadhiyaane jawaabteeda isiiya inaan dhaho in badanna waan kula hadlay waad madax adag tahay arrintan arrin aan u dulqaadan karaba ma aha tani waa taan ku kala tegi lahay mana yeelayo arrintaa maxaad saa ii tiri taa waa mid ii sheega radul ficliga qofka i hor fadhiya ka imaan kara ayaa inaan dhaho xabiibtii markaan eego booskaad iga joogto iyo saan dumar oo dhan kaaga soo xushay iyo qiimaha aad iigu fadhido iyo noloshu inay igu adag tahayba adiga la'aantaa intaasoo arrimood markaan fiiriyo hadalkii aad haddaay igu lahayd anigu kuuma quureen inaan ku dhaho labadaa kee sax intaa ii sheegaysa maxay dareemaysaa gabadha aad qaabka oola hadashay oo aad ku tidhi markaan qiimahaaga arko darajadaada markaan arko meeshaad iga joogto markaan arko
يعني سانا كاغم مار من مركان أركو صماها هذا الكي أدي تري أنا كوما قورين رد الفعل كي مانكرا يتي هوري سوس آدو بكل دون قاب بالله قاب كأن ريرهن وحلنو هدانا أقولين أنا يا ريرهن قعمين لكو دمينين تاو هذا كاسر وقلب السجن مهيمة ويان قلب ككله دنبية إيو توبة الآن ريرهن رير بدن وحد دنيا معصية جورجة تعالى ذنوب تجورجة تعالى إن لقيت توبة كينيني أو أي صلاة الآن تكوكتها أو أي صلاة الآن تكوكتها أو معصية جورجة تعالى أو حنل أو إسحاقرد له أو إسياسد له أو لقيت فوق يا إلهي دين تيسه إيا أراد جورجة تعالى إيا قلب جورجة يالله إيه معصية فربنا لقيت دعوضه أما لقيت جيستو شيطان بجوري سوق ليه سيدا درادة جوري دونه يا إنه بدبادو وحتكون بدبادي كرتا إلهي منهج كيسة إيا كتاب كيسة إيا الصلاة إيا الصون إيا خير إيا بريو إيا عبادو تاسد تكون بدبادي كرتا قلبي يعني ما نظيف نغنية وببسيرة إن شاء الله قلب كلا يتبناد بوقة سوحنك جوريه إنك guriyaheenna buuq badan baa yaala buuq maxaa keenay horta su'aal badan weydiinay culmaalay walaalayaal ilaahay dartii iga jawaaba adiga iyo xaaskaaga maxaa iskugu buuqaysaa iyadoo 20 jir aad guursatay adiguna 20 jir baa tahay aye arrin baa idinka dhaxaysa hore isu soo barateen caqdi baad kala siixateen go'aanna meel idin yaala war wax isweydiiya laakiin buuqa maxaa keenay ilmo yar oo dhashay ma aha gabadhu adiguna ma aha gabadhayn wiil yar oo dhashay ma aha laba qof oo waaweyn baa sooma hadday wax khaldameen maxaa la iskugu buuqi oo la iskugu qayliyi oo xataa la iskugu gacan qaadi mararka qaarkood ilaa uu waddankii meesha boolis yimaado oo nidaam yimaado waay maxaa ka helaya anigu xal baan idiin hayaa islaantaadii adiga isku buuqina yaa salaam oo maxaa iskugu buuqaysa caawa go'aan gaadh islaantaada soo doqon mati haddana caqli badan markaad doqon tahay waa adiga isdhaga tiraya markaad caqli badan tahay xaaskaa intaad la fadhiisato qaabkii hadda aan u sheegayna wax oga dhaadhici xalay muxaadara idiin dhigay ku saabsan waalidow ma askari baa tahay mise mucallim qodob waxaa ku jiray haddaad xusuusataan ilmahaadu khalad walba oo uu galo waa fursad aad wax ku barto yaa ila xusuusta intiinaan yaa joogay xaaska ilmahay ka mid tahay marka wareedha xaaskaad ku qayliyayso eed ku buuqayso ilmahaagii bay ka mid tahay saa daraaddeed khalad kastoo xaaska u gasho maxaa la doonayaa inaad ku noqoto fursad aad wax ku barto fursad aad oga faa'iidaysato fursad aad ku wada fariisataan fursad aad ku wada niqaashtaan fursad aad wax oga dhaadhiciso waa la fahmo malaynayaa marka buuqa iyo qaylada maxaa ka dhasha caruurta tarbiya xumaa ku dhacda caruurta kalsooni xumaa ku dhacda xataa gabadha weyn ee 17 jirka 20 jirka ma jeclaanayso guur galabta waa ka sheekayn doonaa dhalinyaradeenna guurka waxaa ka hortaagan in badan oo kamid ah waalidiinteenna guryaheena dhibka ka taagan gabadhu waxay leedahay hadduuba guur sidan yahay aan ka guur aan kala aado ma tabisma ninba hadduu aabbahay oo kale yahay gabarba hadday hooyaday oo kala tahay tasku buuqay 4 saac oo isdilay 4 saac gabadha u xiisaysa inay guursato waayo wiilka u xiisay inuu guursado waayo waxa idin sheegaya lamaanaho caruurtiina u daneeya xataa gabadhu markay ku soo kortay guri buuq iyo qayle ka jiro waxay aaminsan tahay sidii gabadha tiri hooyada iyo aabbahay mar alla markay isu xanaaqaan mindi ay isoo qaadan jireen maalintaan guursaday waxaan isiri marba ninkaasi isu rimaysaane marka mindi yar baan soo gatay waxay tiri barkinta hoosteeda soo gashaday ilaa aan la yaabay ninkii si ugu soo dhawaaday oo igu sheekaynayay oo igu qoslayay markaasaan dareemay bay tiri inuusan dagaal badan jirin يعني اللي هو يدي أبيت أو ضيال كده حيوم بيركي شفت قبله قلبك وقلب مهمة بوق إيا قيلة أنقريين كدينا قلب زحترناد قالوا ده جيس على مالاي أمر كتاغلين ترجع يا مدحلي قدو مركا خيرين وحاب بربري لما داقل وكل إليا أمر كتاغلين ترجع أنا قانينا الرجال قوامون أنا إلي يا إيقاد بهالله أنا هجانك هيا يا إيقاد بهالله الرجال قوامون وارون آيات الرجال قوامون ألا يري لكن ماشي أدتشيليس آيات وإن أي مناسب كتاي آيات ماشي أدتشيليس وإن أي مناسب كتاي حاجة شفكوا قراء عنيسا
وهذا الرجال قوامون أو إن حريص النبي عليه الصلاة والسلام أو خيركم لأهلي صح أو كان في مينة أهلي أو نبي كفتن كيسي هي عيارتيسي هي نحريس هي أورتنكي وهو يدنا عايشة ولبر التميي أما لا أورتمي أوي تلك بتلك والنبي الله عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك وحوليه نبي قعنتي سولي ولي قفدوا مرة حتى متابعي أو كمدعي حتى نربحه حلي ياضي nin deerisha gabadha naga guursaday Soomaaliya uu dilaa way noo soo dacwatay Sheekh Abroodo waa taqaanaan ani Abroodo noo soo dacwatay ninkii baan wacnay waxaan war gabadha maxaa u dishaa ilaahay quraankiisa ku talaabi dumarka ila laayo wadribuhunna quraanka soo lagu dhaqmo ma waa sax yaani fahamka noocan ee sidan u qalloocan ninka kaliya ha u malaynina dad badan bay ku qalloocan tahay aayadaha quraanka wuxuu ilaahay soo ma dhihin soo quraanka lagu amal falo noomida sheegay haabaan hadee wadribuhunna hadana saanta dilin seen ugu amal falay buu leeyahay halkaas baash ka taagan fahamku waa nin dheerishiya asaga saa u fasirtay marka waxaan rabnaa ragow dhageysta cod dheer baad ku dhahayaa raganimadu ma aha adayg dilid ma aha oo adayg ma aha oo damdamleyn ma aha oo digdigleyn ma aha oo raganimadaada iyo cadalaadkaada inaad muujiso oo caruurtaada iyo reerkaadu ay kala gabadaan ma aha walaalayaalow نبا رجل دقيسة رجل نمضو وحول النبي صلى الله عليه وسلم ما كرامة يضمر إلا من نونا سلمويين ما يهانيسته إلا نلي تم أهانه بكو عليا ما كرامة إلا نن ونكسن ما أهل نكلام كرامة ما يهانيسته إلا نلي تم أهانه نبي حديث سنة وفر عليه الصلاة والسلام صحابتي قاركود دمركودا قراعينا هؤلاء ليسوا بأخياركم خيريدي با لغا حيوبي درجدي يا قرادي خيريدي با لغا حيوبي تاسي وا رجال له رغو امركو تاغلينتا رير كوما دسمو سوري سلامة دمركنا او كدبا دمركنا waxaan leeyahay dumarkina madax adayki la dhigi jiray dhagax hadii la tuujiyo waxa ka iimaanaya dumarka madaxooda wuxuu noqday dhagax waxaan la yaabay arrinka nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay haweentu haday shan waqti tukato haday shanteeda waqti tukato bisheeda ramadaanna soonto xumaantana ay xubinkeeda taranka ka ilaaliso ninkeedana ay maqasho waa maxay ninkeeda ay maqasho waxa laga wadaa anu waxaan la yaabay dumarka waxa dhibka ku keenay inay ninkeeda ku dhahdo haduusan macsi amrin habiibi haye taawi mid jannada ku galayaan laakiin dumar ba waxay moodeen ragga noo cabiidinaysa ragga baad noo cabiidinaysaa see ragga lagugu cabiidinayaa ilaahay waxyigiisa baan aqrinayna nabiga saayid calayhi wasalaam dumar waa midda ugu khayrka badan waa midda ninkeedu markuu arko qalbigiisa uu farax ka dareemo sooma khayru maxawiyaan mataacda adduunyadoo dhan waxaa lagu soo koobay وخير متاعها المرأة قبل الصالحات سيكون نقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله لكن دمرك قيب وحيكون جرا أفكار إبليسية هي أفكار شيطانية انتو شيطانك وكو وسواسيو ليس محالي لنا أنا كمحاليك اللي يقول عبيدين يا نين كان الجنة كل سنيسة أما مقل أما هم مقل أما فهم أما فهم أما يال أما هيال أدي يال خلاص أنا وركي وعدي سنة يلبا أنا سيا وركي وعدي هاي جنة واحد كون قال له دوان ننكاغا يا جري النبي محمد بن صلى الله عليه وسلم وحرب قبلها إنه مدحينا تشلعية أو ننكاغو هدو وناكو ويرو سمعا وطاعا هل كها آذن سمعا وطاعا أصيغا كوف السيحي دورة ما كده لكن مدح عليك دمرك هي أمركو تاغلين ترقى labadaana reerku waa ku dumaa qodobka 12 degdeg lamaanaha ifur iyo hoo haweenkii waa tan hor u soo sheegnay waxay garan weyda maxay dhihi ifur ninkii muxuu dhihi waa ku furay marka maxaan soo qaacideynaa soo qaadanay ifur macnaheedu waa maxay faham ku celiya hadii ifaham wadilka qodobka waa saas weeye dumarkuna yeena sabab la'aan abshir dumarkuna sabab la'aan lama ogolo waciid baana ku soo arooray inay dalqad weydiisaan qodobka 15 isxaqirada lamaanaha
maxaa tahay ma nin baad ismoodaysaa waa la isxaqirayaa ma naag fiican baad ismoodaysaa waan kugu khasaaray waan kaa tegi waan kugu soo qaldamay erayada aan in badan aniga ila talida ka maqlo haa waa hadal xun oo khariban arrimahaas waa isxaqiri wey qodobka 16aad social media internet adduunka snapchat-kan alaabtani reero badan bay dubisay reero badan bay sababsatay shaydaan weyn baa ku dhex jiro lagu kala mashquulay 5 daqiiqo deebo la yiraahdo ka gaarsiinaya kulligood waxaan leeyahay guurka qaybihiisa qabsada waxaa reeraha dumiya guurka loo yaqaano guurka khayaanada qarsoon kow guurka loo yaqaano guurka duulduulka labo guurka loo yaqaano qasabka iyo ciilbaxa saddex iyo qodobka loo yaqaano maxaa la qasabka iyo ciilbaxa iyo midka la yiraahdo argosiga halka wax baa iska keeda marsan waxa weeyaan waa guurka khayaanada qarsoon iyo guurka duulduulka iyo guurka qasabka iyo guurka ciilbaxa iyo argosiga maxay kala yihiin midkan khayaanada qarsoon waa wax nagu soo badanaya waayahan dambe nin baa reer buu guursanayaa inuu mas'uuliyad qaado ma doonayo gabadh baa nin guursanaysa mas'uuliyad ma rabo waxa laga yaabaa dhaldhalaal yar oo adduunya in la rababa in mataqaana afka la isu mariyo way badan yihiin arrintaas qodobka labaad waxaa ka mid ah duulduul waa maxay ragga qaar baad moodaa gabar kasta oo arko in asaga loo diyaariyo gabadha ma la qabaa oo maxaa kaa galaa waxaanu gabar kasta oo qurux badan madaa lagu sameeyey ma garoob baa mise waa garoob ma la qabaa may shukaansigu ku bilaabay cabaar buu meesha joogi waa tegey lamaba haya buu soo furay warqadeedii meel kale uu tegey xaafad buu tegey gabadhan maxay ahayd gabadhan waa ila hebel oo miyaa la qabaa may shukaansigu ku bilaabay dhakab buu ku siini waa tegayaa haddana waa furayaa war iska fiiriya waa mutca bay imaanaysaa mutca waa shaqadii shiicada marka dambe ku dhacaysaa adiga su'aal baan ku weydiinayaa yaa ku amray yaana ku baray yaana kuu sheegay inaad gabar kastoo qurux badan maadaa lagu abuuray war gabdhaha muslimaadka ku ciyaari gabadhaadaba in lagu ciyaaro ma rabtid haddaad mas'uuliyad u guursanayso u guursa gabadhana waxaan leeyahay dembiga waa idinka aad nin walba iska yeelaysaan iska hubsada ragga walow raggu been badan yihiin oo ay gabdhaha in saraacaad ku ridaan oo ay dhahaan anaa ku cadaynayo ku madoobinayo kalar iyo alaab ku marinayo marka dambana meelu ka baxay la waayo haddana inta awoodiina iska kontroola ninka guurka duulduulka la yidhahdo wey kan kale oo qasabka waa taqaanaan laba faryarood mid doora waa kuwa la dhaha wey oday waayeela ayaa dan loogu xilanayaa lacag ama madax ama wixii waa taqaanaa arrintaasi gabadh yaroo miskiin oo 12 jira ayaa odaygii mataqaanaa ii keen dhakab lagu siinaya guurka ma raaga asna inta badan waa si dhici kartaa qolo ilaahay u barakeeyo guurka ugu dambeeya waxaa la yidhahdaa guurka ciilbaxa iyo argosiga muxuu yahay laba isku xumaanaysa markay isku xumaadaan ayaa la isfuraya hadda ka hor baa su'aal la weydiiyo la yidhi maxaa guur furiinku ugu badan yahay soomaalida waxaan ku idhi gabdhaheenna soomaalida suuq leh adduunka intiisa kale gabdhahooda suuq ma leh gabadh carbeed haddii la furo lama guursado eeshiyaan haddii la furo lama guursado ilaa guur misyaarkan iyo guurkan qofsireedka inaga u naqaano ma ahane guur calana lama guursado gabdhaha soomaaliyeed baa adduunka laga guursadaa kaaga daranta weliba markay gabadha dadka qaba iyo ayadu kala qabiil yihiin khilaafku markuu dhacaa shukaansiga lagu bilaabaa annagaa ka korba kaa kari weyne reer hebel yaa ku warsa ku yiri ilma adeerta baa kuu joogtay waxa waa shukaansiga waada bartaasaa lagu sii bilaabaa ilaa mid ninkeedu xanuunsan yahay yaa mid soo maray markaasuu yidhi insha allah wuu caafimaadi doonaa martaana hadduu dhintana anaa kuu joogo ku yidhi kadibna ninkii baa dhintay ayadoo ooyisa mid kalaa soo maray markaasuu yidhi iska sabar waa la dhimanayaa anaana kuu joogo war iga tag bay tiri waa laga soo kaa horreeyey waa kii hore ma garanaysaa mushkiladda marka jirta waxaa weeye hadda waxaaba nagu soo badanaya gabadh ciddo ku jirto oo shukaansanaysa wax hadda cidday ku jirta ogaada gabdheenu say suuqa u leeyihiin marka waxaan leeyahay guurkaasi ciilbaxa la dhahayo saadii gabadhu ciddada oga baxdaba ayadoo ninkii hore ku xumaynaysa ama ninku asagoo gabadhii hore ku xumaynaya ayuu markaa muxuu guursanayaa guur la yidhaahdo guurka
ciilbaxa iyo argoosiga guurka asagana ma raaga insha allahu qodobka kale waxaa weeye qaxootinimada iyo dagaalada waxyaabaha reeraha burburiyay ku jiraan qodobka kale balwadda sigaarka qaadka shiishada iyo wixii iyo fadhi ku dirarka iyo kubadda waxaasoo dhan waa qaybo badan oo nooc balwadda ka mid a nadaafad xumada ka mid a nadaafad xumada waxaa weeyaan xagga shirka iyo guriga iyo caruurta intaba waxaa kaloo ka mid a isha maxaa u jeeda maya caaqnimada soo ma ogidiina culummo allahi reero badan oo dumaya wax kale ma haysto wax kasta waa diyaar laakiin islaamtu ama ninku labadu way habaaran yihiin hooyadii adugu nin habaaran oo hooyadii soo habaartay naag ma qabi kartaa adugu gabarh habaaran oo aabbaheed ku soo yiri adu ma qabi kartaa ilaah baa kuu dhaariyey sheekhow sadaqa kasta waan bixiyey sheekhow sadaqa kasta bixinay wax walba samaynay haddana dagaalkana waa joogta 24 saac waxaan leeyahay reero badan oo buuq ka taagan yahay oo garan laadiin cudurka ana caaw idiin sheegaye qof loo hooyada dib ugu noqo aabahana dib ugu noqo haday dhinteena sadaqa u bixi haday nool yihiin maxaa la yiraahdaa iike maxay ya marka hooyo habaaran iyo aabba habaaran reer ma dhaqan karaan arinta la socdo insha Allah taala iyadana qodobada ugu dambeeya waxa kamida mas'uuliyadii ragga oo luntay markii meelaha la yimid qodob kale waxa weeyaan gardarro garab og oo islaantii shalay markii la isku xanaaqo intay reerkoodii tagto dhibaata la soo siin jiray muqmadda iyo oodka keeni jirtay hadda haddii mataqaana la isdaaro ayadana meel kale daari taasna waxa weeyaan waa mid sixirka iyo isha reero fara badan oo kala tegaya cudur kale ma haysee waa la ileeyey ayadana taasna in lagu baraaro waa muhiim waxaa ka gacan qaadka ayaa kamid ah waxaa kaloo kamid ah jacayl bug ah beenbeen ah jacayl bug oo beenbeen ah oo la sheegayo maanta telefoonkaasi khayaano fara badan baa ka socota reero isqaba telefoonkan baa duminaya ninkii cid kalooba la haystaaba weliba ragga ugu badan xaaskiisii oo joogto shukaas ku jira dulmiga xageed ka keentay xaaskaaga og sariirta wallaahi inaa idiin been sheegaynin oo tiro aad u fara badana dumarka dacwada waxaa ka mid a sheekha anoo jiifuu moodaya inaan jiifo xaggana islaam buu la sheekaysanaya waa ayadaa ku ag jiiftee iimaanka allah kaa qaadi waaye ma ayadaad garan la'da ayadii xaqeedii awr sariirtii bay kula jiiftaay war iimaanka keensada oo ninka guursanayo mas-uuliyad u guursanayo raganimo u guurso laakiin waxa ku juraafka ah ee mobilkan aad nin walba hadda mobilkiisa kuudu ku xidhay carwaa ninka intuu furo xaaskiisa siiyo maxaa la qarqarsanaysaa iisha waxa la qarqarsanaysaa mobilkiina maxaa ku dhex jira maxaa la qarqarsanaysaa intaad furto car xaaskaagu dhiib maxaa dhiboo ku haysaday kalsooni xumada xageed ka keentay waxaan jirin baa ku keenay mid baa mataqaanaa laba xaas buu qabay taasaan ku khatimayaa laba xaas buu qabayoo sheekh maxamed shaxsaan baan ka dhegaystay bilmunaasaba arrintaas youtube ku jirtaa marka gurigu imaaday islaamihii mid ka mid a telefoonkii walka kelito musqushu galay tii baa soo wacday kamay qabanina way fiirisay markay dhiftay u qortay waxay tiri waadna dhiftay hal dalqad baan kugu furay telefoonka yaa leh odayga baa leh message way tirtirtay danta iska raacto odaygeeda soo dhaweysay wala iska joogay odaygii asagoo islaantii baa habeenkii dambe habeenay waaba islaantii waa bug maxaa naga soo dhisa annaga maxaa nagu soo ganaaca annaga maxaad naga rabtaa annaga nooga noq albaabka maxaa kugu dhacay maxaa kugu dhacay bal shaydaanka iska naar war kadibna war soo message adu ma soo dirin wallahi kitaab 3 kitaab quraan mar tawraad injiili furqaan inaana soo dirin marka daba xaqiiqada yaa furay islaanta kala furtay marka waxaan doonayaa inaan dhaho mobilkani kalsooni la'aan buu reeraha dhaxdooda ka abuuraa ragow aad u dhegaysta weliba dhalinyarada aad moodo inay iimaanku ka tegey qaar gabdho yaryar baad qabtaani allah idinku soo gabdhihiina oo gabdhihiina qurqurux badan arka oo xidha waxaan yaryar idinku soo yaacaya xidha baabka ka xidh weliba soo gabadhaada ilaasho reerkaaga ilaasho mobilkaaga tuug ma tiide u dhiib haddaad sheekh tahayna su'aalo lagaa weydiinaya ka badan miya haddaad macallin tahayna ardadii macallinka ayaa mataqaanaa ii keen wax kaa weydiinaysa miya maxaad qarsanaysaa aniga maanta mobilkayba iga haysaaba mobilkan ku kacsanahay muxuu mobilkan ku dhex jira ood xaaskaaga aad kala qarqarsanaysaa ii sheeg ma tahay soo maaha labada qof inay shafaafi isu noqdaan oy is aaminaan oy daacad isu noqdaan oo xaqiiqo isu noqdaan ma tahay soo maaha
waan ku celaya ninka raganimo isku hayo mas'uuliyad qaadi kara baabku waa furaya kii kala sooma aha baalka ayaan reero marka jacayl bugaan u bixiyo asal Allah subhanahu wa ta'ala ilaahay waxaan ka baray inuu darsiga nagu anfaco barakallahu fiik jazakallahu khayran